الله باي حبالي حسبينا موعدينا ما أنت وافي الوين حسبينا موعدينا ديقارات كياتيني عرانا موعدينا نادلكو دهليو وهراديهي اسبدل باندو هونينا عن عيارهي كاركن سيدو عدين سيد بان كو شيغنا سا اي كارك halkaan xisbiga wadan hadadu codeynaysa kaarkaas ma adag lambar 1 waa musharax madaxweyne lambar 9 kana wuxuu codeynaysaa xisbiga lambar 2 gudida wacyigelinta ee dhalinyarada beelaha Madhibaan ee magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer oo in muddo wacyigelin ku saabsan arrimaha doorashooyinka ka waday xaafadda Madiina ee magaalada Burco iyo sidoo kale dhammaan xaafadaha kala duwan ee magaalada Burco kuwaasoo bulshada ku wacyigelinaya inay doortaan murashaxa madaxweyne xisbiga wadani Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi iyo gudoomiyaha xisbiga Xirsi ayaa maanta si rasmi ah u soo gabagabeeyay wacyigelintaasi gudidaas oo soo abaabulay Suldaan Daakir Xasan Khaliif isla markaana uu ka shaqeeyay sidii ay bulshada ugu wacyigelin lahaayeen inay ilaashadaan kaadhadhkooda isla markaana u diyaar garoobaan doorashada dalka ka dhacaysa ugu horreyn qaar ka mid ah madax dhaqameedka cuqaasha dhalinyarada iyo haweenka wacyigelintaasi waday oo halkaasi ka hadlay ayaa bulshada ugu baaqay in ay codkooda siiyaan murashaxa madaxweyne waxa maanta halkan jooga gudidii beesha Madhibaan in badan soo shaqeynaysay qaban qaabiyay isku soo dabiriday Suldaan Daakir Xasan Khaliif oo qaban qaabinteeda iyo sameynteeda ba asagu uu hindisaha keenay aad iyo aadna uga mahadnaqayno annagoo cuqaasheena aanu ku garab taagnayn in badan baad kulli soo shaqeyseen dadka soo wacyigeliseen qof walba inuu kaarkaaga soo dhaweysto oo aad gacanta sidaa ugu haysato ayaa la idinka baahan yahay gudidan sharafta iyo karaamada leh waa gudida wacyigelinta gudideedii weeye gudidaasoo wajigii afraad maanta u bilowday in waxa weeye xaafadda wacyigelin ka sameeyaan taasoo waxa weeye keentay shaqadii awal baanu heenay inaan soo siyaadino maadaama beritoole November 13 tahay bisha 11aad ay beritoole codaynti tahay waxaanu diyaar u nahay in dadkaysi wacyigelino si qof kastaaba kaarkiisa u soo dhaweysto si qof kastaaba goobta ku codeynayay u gaaro u tago ayaan xaqan isku soo baxnay shaqada oo ilaa waxa way hortiimka muddo la bilood ba soo wadnay insha Allah beritoole waxaan leenahay aan reer Soomaaliland ugu baaqaynaa gaar ahaan reer Burco ugu baaqaynaa gaar ahaan xaafadan ugu baaqaynaa in qof kastaaba codkiisa iyo fartiisa ku ciil baxo wadankii maanta xaq maraya ognahay isbedel baan u baahannahay madaxweynaha mustaqbalka insha Allah dhow ee maalin uga hadhay Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro waxaan leenahay aan ugu hubsado farta lambarka koowaad Cabdiraxmaan murashaxa lagu hubsado lambarka 9aad waa xisbiga wadani in laga hubsado waxaan leeyahay Jaanis baad haysataan reer Soomaaliland oo Jaanis haystaan baaq baan u diray reer Soomaaliland oo dhan waxaan leeyahay beritoole waa Jaaniskii lagu kala baxayay waa Jaaniskii 7 sano aynu rafaad iyo imtixaan iyo soo marnay iyo 5 sano dambe oo barwaaqiyo wanaag galayno ayaan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ka barayna waxaan leenahay fartiina ayarsanay mar labaad fartiina ku cilbaxa fartiina wax bay ka codeeya in muddo waxaynu soo wadnay wacyigelintaasoo ah sidii dadku u codeey lahaayeen wacyigelinta way noo dhamaatay maantaynu soo gabagabeynay waxaynu soo gabagabeynay xaafadda Madiina waxa weeye wacyigelinta joojin mayno way socoraysaa dadku way codeynayaan cidda ay u codeynayaan iyo sida ay u codeynayaan oo u sheegteen halkan waxaan fariin u marinayaa dhammaan reer Soomaaliland waxaan leeyahay nabadgelyada ha laynoo adkeeyo wax kasta nabadgelyada ka muhiimsan qof yar qof weyn waa in nabadgelyada la ilaaliyaa musabixi madaxweynaha waxa weeye dad buu balansaday dhammaan Soomaaliland oo wareerisu ku xidhay weelayseena ku xidhana waa in cod laga yaabay dhibco fara badan aynu ku soo saarnaa musharaxiina hawshan oo aanu muddo soo wadnay iyo maalintii afraad ayaanu maanta ku soo afjaraynaa aad iyo aad dadweynaha waxaan ugu guubaabinayaa inay kaarkooda ay gacanta ku haystaan nin walba goobta ka codeeyay oo ka codeeyo ka qaatay marka waxa weeyaan way mahadsan yihiin dadka inta muddada soo shaqeynayay waxaana soo qaban qaabiyay intaana hawsha soo waday Suldaan Daakir Xasan Khaliif iyo gudiga la shaqeynaysay fartiina waxaanu doonaynaa inay madaxweynaha Cabdiraxmaan iyo xisbiga aan la seegin farta lagu hubsado
insha Allah bismillaahi kariin isbedel baan u baahannahay ummadda Soomaaliland waxaan u sheegaynaa inay isbedelka taageeraan insha Allah bismillaahi kariin waxaan nila socodsiinaynaa maanta inay halkan ku soo xidhmeen ololihii wacyigelinta ahaa ee barnaamijkiisu ahaa door to door guddidan meeshan iskugu timi oo ka soo jeeda beelweynta Madhibaan heer gobol ilaa heer qaran ay arrinka xisbiga ay meel walba u galeen si codkoodu u lumin iyo in alaalintii xigaal iyo isku xisbiyahan yihiin maanta way ku mahadsan yihiin iyaga iyo aqoon-yahankooda iyo odayaashooda iyo cuqaashooda iyo sulaadiintooduba barnaamijkii maanta uu halka ku eegyahay inagoo in 7 sano soo daarinay oo soo rucleynay haddaan maanta dib u dhiganno farteena ama maqalkeena muuqeena dalada Madhibaan baynu u xidhinay waxaan leenahay maanta waa feesta bari waa fagaaro weyn reer wadaniyow fartiina maxay taqadiyadiina meel ahaato aynu maxay xisbigeena soo saarno aynu cududeena muujina rag iyo dumar waxaan leenahay waan ismaqlaynaa waxa maanta noo soo dhamaaday noo soo afxidhmay wacyigelintii aan 4 maalmood soo wadnay insha Allah bismillaahi kariin waxaan rajaynaynaa inuu tacabkaygaasina midho dhalo insha Allah waxaan ku wacyigelin doonaa dadkayga inay kaadhirkooda adkaystaan ugu dambeyn Suldaan Daakir Xasan Khaliif oo halkaasi ka hadlay ayaa bulshada Soomaaliland fariin ku saabsan doorashada u diray maanta hadduu alla qadaro ololihii iyo wacyigelintii ama door to doortii aan wadnay ee ka wadnay deegaanada magaalada Burco xaafadaheeda iyo magaranaysa goobaha ay bulshadana ku dhaqan tahay maanta ayaa inoogu dambaysa oo 12 bisho ay tahay waxa idin faraynaa oo idigu magaranaysa amraynaa oo idin sheegaynaa waxa jira dad waayeel ah oo aan imanayn goobaha waa in la soo qaado insha Allah taala dad baan garanaynin meesha ka codeynayaan waa in loo tilmaamaa dad baa jira runtii haday doonaan ba iska seexan kara waa in guryaha laga soo toosiyaa la soo kaxeeyaa biritoole waxaan doonaynaa waa maalintii ugu dambeysay inaanu insha Allah taala codkeenu muuqdo oo uu ku muuqdo xisbiga wadaniga musharaxeena Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro waxaan u sheegaynaa reer Soomaaliland ilma adeerayaal oo walaalayaal hore ayaan u lunnay sahlaan guurnay dhibaato badan asiibtay maanta baaqayagu waa qayladaan weeyaan war Soomaaliland ayaa mar damba lulumin war biritolan chance haysanaa daafaha meel walba ku sugantii Soomaaliland aan iska hor dhaqaajino ninka maanta ina qobqobay ina qaybiyay ina baabiyay ina kala diray waxaad ogtiin sameeyay maanta hadduu soo baxa hanjabaya dhaaranaya ciilqabaha ah ninkaas waxa weeyaan waa Muuse Bixi waa wada garanaysaa waxaan doonaynaa inaan mideeya ninna walaaleeya mid dalka u gargaara ayaan u baahannahay waxaan ku baaqaynaa walaalayaal gacantiina ku ciilbaxa gacantiina ku aarsada Soomaaliland waxa leeyahay mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro waxa weeyaan walaaleeya weeye Shaakir Cabdiraxmaan Axmed telefishinka Saab Burco maasha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmed waxay ku diyaarisay adeegga internetka ay fiber optiga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha biligteeda intuu soo gudlanayo hadalba gam hagarlii ku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska haddaba maxmed soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo